waxaan haystaa dhibaatooyin xagga xusuusta ah waxyaabaha miyay igu dhacday dementia markaad weynaatid way fududahay inaad go'aan ka gaartid xusuustaada khaasatan markaad limiso furayaasha gurigaaga mar kale ama aad isweydiisiin markaad la kulantay qof aad ogtahay inaad la kulantay hadda ka hor cilladaha yaryar ee xusuusta iyo feejignaanta waxaad mooddaa inay tahay dhammaadkii dunida laakiin waa muhiim inaad xusuusatid maskaxdaadu waa xubin aad u kakaman ilowshiyaha erayada cajiibka ah magaca ma aha inuu kugu dhacay dementia weliba cilladaha xusuustu waxba ayay micno u lahaan karaan maadaama wax badan ay saamayn karaan xusuustaada dawooyinka farmasiyaasha laga qaato ama dawooyinka la qorayo isticmaalka khamriga oo xad dhaaf ah ama xaaladda caafimaadka ku hoos laaban oo laga yaabo inaanad garanayn xitaa sababaha maskaxdu way saamayn kartaa xusuusta maadaama marka aad dareentid niyad jab ama aad leedahay buuq joogto ah maskaxdu waxay dhiigga ku sii daysaa hormoon loo yaqaano kortisool heerarka sare ee kortisoolkaaga cilladda ayuu ku keeni kartaa unugyada ku jira hibokambiskaaga qayb ka mid ah maskaxda oo muhiim u ah saamaynta xusuusta tani way kugu adkaanaysaa inaad xusuus cusub u samaysatid ama aad baratid kuwii hore markaa waxaad lahaan kartaa dhibaato xusuus laakiin qasab ma aha inaaad leedahay dementia waa inaad la socoto caafimaadka maskaxda iyo ugu muhiimsan u tag dhakhtarkaaga qoyska ku saabsan walaacyada xusuustaada maadaama dhakhtarkaagu wuxuu ogaan karaa xaalad kasta oo ku hoos laaban taasoo saamaynaysa xusuustaada ama ku caawiya in aad si caafimaad leh u maaraysid buuqa ama walwalka haddii ay arrintaasi sidaa yahay ama beddel ama jooji dawada dhibaato ku keenaysa xusuustaada oo xusuuso sababaha qaar ee dementia waa la dawayn karaa xitaa dib loo celin karaa taasoo ay tahay dhiirigelin aad dhakhtarkaaga ka qabsatid ballan si aad u heshid hubin maskaxdaada iyo raaxa yar dhakhtarkaaga waa laga yaabaa inuusan ku weydin war xun oo aad ka cabsanaysay